hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah ilaa iminka gudoomiyaha midowga musharaxiinta balse garab istaagay howlaha doorashada ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Sheekh Shariif ayaa xubno xisbigiisa himilo qaran ka tirsan waxay xalay fila Soomaaliya kula kulmeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxayna ka soo horjeesteen qoraalka wadajirka ahaa ee ka soo baxay midowga musharaxiinta oo ahaa in la qabto shir weyn doorashada socotana gabi ahaanba meesha laga saaro. ilaa iminka Sheekh Shariif ma hadlin balse Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weerar afka ku qaaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoona ka hor yimid in doorashada socota la taageero. afartii sano ee muddaxileedka maamulkiisa iyo ku dhawaad sanad sharci darro ah farmaajo dastuurka dalka ma qabyo tirin doorasho qof iyo codna ma qaban 4.4 lagama gudbin Somaliland lama heshiin Al-Shabaab lagama adkaanin Amisom lagama marmin welina beesha caalamka ayaa biil ka bixisa dhaqan siyaasadeedkiisu banaa ee sanadahan lagu soo dhaqmayay ee ahaa in afartii sanaba doorasho si nabad ah xilka lagula kala wareego waa diiday oo boob iyo foodo ayuu wadaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. boobka doorashada waa wado uu farmaajo jideeyay qofkii ku raacana isaga ayuu la mid yahay qofkii maxlal iyo malxiis ka noqdana ka daran qofkii hor istaagana dulmi iyo burbur ayuu diiday ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoona hadalkani u muuqanaya inuu weerar culus ku qaaday Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir isla markaana haatan muuqanaya inuu u badanayo dhanka filla Soomaaliya kadib markii uu ballanqaad ka helay hogaamiyaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u ballanqaaday lacag gaaraysa $1 milyan oo dollar kadib markii kulan qarsoodi ay yeesheen Fahad Yaasiin iyo sidoo kale Sheekh Shariif sidaas inay ku wada kulmeen Sheekh Shariif iyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday iyo madaxa ololaha farmaajo Fahad Yaasiin. daawadayaal waxaa daawanaysaan qaybaha hore warka sirta meediya markan haddii aynu eegno wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka qayb galay madasha aragti wadaagga arrimaha geeska Afrika ee uu soo qabanqaabiyey macadka cilmi baarista Heritage ayaa soo hadal qaaday xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti oo dhawaanahanba khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyay. Jamaal Maxamed ayaa meesha ka saaray in haatan khilaaf u dhaxeeyo labada dal oo ah laba dal oo walaalo ah wuxuuna qiray xilligan inuusan jirin wax khilaaf oo ka dhaxeeya labada dawladood. sidoo kale wasiir Jamaal oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Djibouti ay baal weyn ku leedahay Soomaaliya isla markaana ay door ku leedahay dawladiska Soomaaliya. Djibouti walaalaan nahay dawladii carta ayaa halkan lagu dhisay maantana waa annaga halkan ka soo qayb galnay waana soconaya xiriirkeena ayuu yiri wasiir Jamaal. khilaafka soo kala dhex galay Djibouti iyo Soomaaliya ayaa banaanka u soo baxay horaantii sanadkan kadib markii dawladda federaalka ay Djibouti ku eedeysay inay kala safatay Kenya oo isku qabtaan arrimaha gobolka Gedo oo xuduud la leh wadankaasi. si kastaba hadalka wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli filla Soomaaliya cadow xoogan shacabka Soomaaliyeed uga dhigayso dawladda Djibouti isla markaana ay doonayso in taasi beddelkeeda ay soo dhawaysato dawladda Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea. daawadayaal waxaa daawanaysaan qaybaha hore warka sirta meediya markan haddii aynu eegno qaybtii ugu horeysay ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde magaalada Muqdisho. diyaarad military oo aan lahayn wax sumad ah ama calanka dalka laga leeyahay ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. howlwadeenno ka tirsan garoonka diyaaradaha ayaa inoo xaqiijiyeen ku dhawaad 200 oo ciidan isla markaana qaybtii koowaad ee ciidamadii ku maqnaa dalka Eritrea ah maanta gudaha dalka la keenay iyadoo dhanka garoonka ciidanka cirka ee Afisiyoni lagu arkayay gaadiid aad u badan si loogu daabulo ciidamadaasi. ciidamadan ay waxaa qalabayn doona dawladda Turkiga oo Soomaaliya ka saacida sanad ciidan iyo waliba tababarada lama oga ujeedka ciidankan
xilligani loogu soo aadiyey iyo filla Soomaaliya waxa ay u isticmaali doonto inkastoo ay xusid mudan tahay in filla Soomaaliya ay qorsheynayso in ciidamadani ay ku weerarto magaalooyin badan oo gudaha dalka ku yaala isla markaana midowga musharaxiinta haatan cabsidii ugu xooganeed ay soo wajahday maadaama Farmaajo iyo Fahad Yaasiin kulamo xasaasi haatan ay uga soconayaan xarunta filla Soomaaliya saacadaha soo socdana la filayo in Farmaajo uu la kulmo saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysa maalinta Baritaa ayaa sidoo kale lagu wadaa in 200 oo askari oo kale ay soo garaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana wararku sheegayaan in todobaadyada soo socda ilaa iyo 25 diyaaradood oo diyaarad waliba ay sido 200 oo askari Muqdisho ay ka soo degi doonaan kuwaasi oo filla Soomaaliya ay u diyaarisay goobihii ciidamadaasi la dejin lahaa markii ay soo garaan magaalada Muqdisho qaybaha kale harsan markana hadii aynu eegno dhanka Jubbaland Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo muddo xulafo siyaasadeed la ahaa mucaaradka ayaa hadda ka baxay safkii muddada ay ku jireen waxayna jufo la noqdeen filla Soomaaliya oo kuraasta golaha shacabka haatan boob xoogan ku haysa horjoogaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa qaaday tallaabo kale oo si kala fogeynaysa golaha midowga musharaxiinta iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland kadib markii uu ku dhawaaqay qabashada doorashada 14 kursi oo kamid ah golaha shacabka Axmed Madoobe wuxuu xiliyo ay xaaladda ku xubmeed garab siyaasadeed ka helay mucaaradka Muqdisho ku sugan waxayna mas'uul ka ahaayeen xalaaleynta doorashadii muranka badnayd ay ka dhalatay uu ku soo baxay hogaamiyaha Jubbaland hase yeeshee ugu dambeyn waxa uu si caddaga uga furaystay baaqyada ka imaanaya musharaxiinta ay ku aadan in la hakiyo boobka doorashada iyo kuraasta shakhsiyaadka gaarka la siinayo guddiga doorashada maamulka Jubbaland ayaa xalay xilli dambe ku dhawaaqay lambarada 14 kursi oo ka tirsan kuwa golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waana maalin kadib markii midowga musharaxiinta ay ku dhawaaqeen shirweyne looga hortagayo boobka doorashada warar soo baxaya ayaa sheegaya in guddiga Seed ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen gabi ahaanba qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta waxaana go'aankan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee Jubbaland soo dhaweeyay guddiga doorashada heer federaal Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa haatan waxay u muuqanayaan kuwo waji kale la soo baxay isla markaana ka soo horjeestay dadaalada musharaxiinta ay ku doonayaan inay ku hakiyaan boobka doorashada ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa horay dhagaha uga furaystay baaqa musharaxiinta ee ku aadan hakinta doorashada hogaamiyaha Jubbaland ayaa isna jidkaasi qaaday halka Siciid Dani uu dhawaan ku dhawaaqi doono doorashada ku dhawaad 10 kursi oo tala Garowe guudaan saaxiibayaal inta ayaan ku soo afmeeriyo warkeed ka daawanaysa channelka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media